wafdigan uu hogaaminayay xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. wafdigan uu hogaaminayay xildhibaanka oo diyaaradda wadda ay ka soo caga dhigatay garoonka caalamiga ah ee degmada Gurceel iyo waxa halkaasi ugu sii diyaar garoobay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale maamulka degmada, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. kadib soo dhaweyn balaaran oo loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Gurceel ayaa loo soo gudbiyay wafdiga uu hogaaminayay xildhibaanku gudaha magaalada, waxaana munaasabad soo dhaweyn loogu qabto hool si weyn loogu diyaariyay. halkaana waxaa ku sugnaa odayaasha dhaqanka, culumaa diinka, dhalinyarada, ugaaska, xildhibaano, wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. khudbooyin kala duwan oo soo dhaweyn iyo bogaadina ayaa loo jeediyay wafdiga uu hogaaminayay xildhibaanka, waxayna guud ahaan bulshadu sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in xildhibaanku uu deegaankiisa yimaado, isagoona hore uga fuliyay mashaariic kala duwan oo deegaanka horumarintiisa tilaabo hore loogu qaadayay. ugu horreyntii goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda sare ee degmada Gurceel, odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. waxaan halkan ku soo dhawaynaynaa xildhibaanka dowladda federaalka Soomaaliya ka socda oo maanta soo gaaray degmada Gurceel si uu uga qayb galo baaqi ugaaska beesha oo uu jeediyay in halkan maaragtay uu ka qabsoomo. waxaan leenahay xildhibaana ku soo dhawow degmada Gurceel, ku soo dhawow meeshii laga doortay. waxaan leenahay bulshadii soo dhawaysane aad ayaan kaga mahad celinaynaa soo dhaweyntii quruxda badan ee aad muujiseen. waxaan leenahay maaragtay runtii aad iyo aad ay u mahadsan tihiin xildhibaana. waxaan leenahay soo dhawow. waan ugu mahad celinaynaa sida xidnaan kale oo ay ku soo dhaweeyeen. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaaw xildhibaane. waxaan leenahay gogashii ugaasku iclaamiyey halka shaqsi ee ku guulaystay mas'uuliyad ahaan iyo mudnaan ayaad noqotay. waxaan rajaynaynaa intii kalena inayna soo gaarto. waxaan leeyahay xafladda waa xaflad soo dhaweyn mar labaad. mudane mahad maxamed salaad xildhibaankeena sharafta leh oo dowladda federaalka noo matalaya, soo dhawaaw. waxaan leeyahay soo dhaweynta dhammaan intii iga horreyda ayaan la qabaa. ku soo dhawaaw deegaankaagii, ku soo dhawaaw deegaanka dowlad goboleedka Galmudug oo aad federaalka u matalaysid. waxaan leeyahay 4 sano iyo bilo ka hor ayaa deegaanka kugu dambaysay. maalin farxadeed ma ahayn, laakiin maanta farxad iyo raynrayn aan kugu soo dhawaynaynaa. inta kadib munaasabadda waxaa ka hadlay ugaas xasan, ugaas maxamed, ugaas nuur oo sheegay in loo baahan yahay in dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka ay yimaadaan ayna ka qayb qaataan si deegaanka loo horumari lahay. gobolka Galgaduudeed intii joogta maahane intii kor nooga imaanaysay oo sugaynay oo beesha oo aan baaqa u jeedinay xildhibaanka koow u horeeya. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay hadda ka bacdi alla waan diyaaraduhu iska kana garbin. waan malaynayaa inay si fiican u imaan doonaan. marka koobaadna siday u nabad jecel yihiinna waan ogahay. hadda 11 boqoron anigu u dambeeyoon kowdii ahay na sida ay u xurmeeyaan u qiimeeyaan ogahay. ugu dambeyntii waxaa soo afjaray munaasabada soo dhaweynta oo ahayd mid aad uga duwneed kuwii hore loogu qaban jiray degmada Gurceel. xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo deegaan doorashadiisu ay tahay Galmudug. intaas kadib safarkayga aniga 3 qodob ayuu salka ku hayaa. kan koobaad wuxuu yahay dib u heshiisiin guud iyo mid gaar ahaaneed. mid guud oo reer Galmuduga oo maamulkooda iyo waxa ka dhiman iyo dadka reer Galmudug sidii loo tabantaabi lahaa wax la isku duwi lahaa dib u heshiisiinna lagu sameey lahaa. iyo mid gaar ahaaneed oo aniga iyo culummada waxaan rajaynaynaa insha Allah dib u heshiisiintaas furaheedii aeroboorku ka soo bilowday hadda howlkoow maraa inta kalena waa sii dhammaystiraynaa ilaahay inuu guuleeyo. qodobka labaadna wuxuu yahay gogol xaarid iyo tabantaabin gogashii ugaas xasan, ugaas maxamed, ugaas nuur oo ku baaqay ee ahayd in shir lagu qabto meeshaan oo beesha xildhibaanada aanu nahay ee golayaasha baarlamaanka aan ku matalno isku yimaadaan inaan soo ajiibay oo horudhac aanu ahay. wafdiyo kalena iga dambeeyaan oo imaan doonaan insha Allah haddii Allah uu wada ogolaado.
qodobka saddexaadna wuxuu yahay deegaanadan galmudug oo golaha shacabka aan ku matalayo mashaariic laga fuliyay tuulooyin hoos yimaada degmooyinka cidaanu ay degan tahay ee Gurceel Balanballe iyo Dhuusamareeb sidii aan u furi lahaa oo ayadana bulshada reer galmudug ee deegaankan joogta ayadana aan ula qaybsan lahaa wixii qabsoomay muddadii xildhibaanka aan u ahaa soo dhaweynta maanta loo sameeyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad waxay aad uga duuneed soo dhaweyntii hore loogu sameeyay jiray madaxda kala duwan ee ka socota dawladda federaalka ee soo gaara degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana dadka soo dhaweeyay saakil yimaadeen deegaano kala duwan oo ka tirsan Galmudug Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Gurceel